بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد استعانة بالله وبعونه إن شاء الله تعالى وعربنا إن أنه هل كان كسو جيدنا بافين عرور لسو أفطوبي أنه odayaal iyo culimo ka socda gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood baa caruurta laga soo afduubay halka aanu hadda ka hadlaynaana waa Nairobi caruurtaas waxa soo afduubtay dad maafiya ah oo ka ganacsada daabulka iyo ganacsiga caruurta sida la sheegay nin iyo naag ayaa Laascaanood ka soo afduubay kuwaasoo aan ahayn deegaanka Laascaanood dad u dhashay aan ahayn isla markaana waxa la sheegay in la keenay Muqdisho haddana la keenay wadanka Kenya oo aanu hadda ka hadlayno caruurta waxa la soo galiyay magaalada Gaarisa xaafad la yiraahdo sida naloo sheegay Buula Mansuuri iyar kadib haddana waxa la soo galay magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda sida meel la yiraahdo Sabaki iyo Malalongo meelahaas ayaa lagu sheegay caruurta waxa hadda lagu sheegay inay qof dumar ah ay la wareegaalaysanaysa wadanka Kenya qoftaas oo waxa weeyaan sida yaani loo malaynayo ama daniga badan uu jiro ah dadka ka ganacsada caruuraha waa qof luka dhutinaysa marka waxaanu codsanaynaa oo dawladda Kenya aanu ka codsanaynaa in ay hawsha gacan naga siiso maadaama wadanka Kenya caruurta la soo galay waxaanu kale mar labaad dadweynaha Soomaaliyeed ee degan Kenya ka codsanaynaa inay caruurta baadidoonkooda nagala qayb qaataan caruurta magacyadoodu waxay ahaayeen yaani laba wiil iyo laba gabdhood bay ahaayeen wiil waxa la yiraahdaa Xamse Maxamuud Saciid anigu waxaan ahay aabihii ciyaalka dhalay oo ah Maxamuud Saciid wiil kalena waxa la yiraahdaa Safwaan Maxamuud Saciid gabadhna waxa la yiraahdaa Xamna Maxamuud Saciid gabadha kalena waxa la yiraahdaa Salma Maxamuud Saciid waxa warku nagu soo gaaray in magacyadii ciyaalka laga bedelay magacii aabahoodna la bedelay qabiilkay ka dhasheenna la bedelay arimahaas ayaana soo gaaray wararka xaqiiqada ah waxay sheegayaan in wiilasha loo kala bixiyay Cabdullaahi Aadam iyo Umar Aadam iyo sidoo kale Safiya iyo Sumaye loo kala bixiyay gabdhihii oo ilmo Aadam lagu magacaabay waxaanu rabnaa arinta kale inaanu dilo wadaagno muuqaalada caruurta xilli dhawaan ah yaani si marka xogna ku siiyay sawiradooda maadaama aanu in badan baadidoon ahayn marka sawiradoodana waa idin la wadaagaynaa insha Allah taala waxaanu يعني مر لباد يا مر صدحات بايد كعدسنا هذي دولة تاي كينيا يا هذي شعب كالصوماليات يهين بمادام عرور تاس عرور صوماليات يهين ومد دد صوماليات نلقى صافت وبي إن نقله هول قلان سحش ملأ أو احترام له أو عدسة عرور تدأذو وحوجوا يصدحية تبنشر أو قبر أو حمل الله إلى هذا markii hore aan ula baxnay hadeerna Sumaye loo bixiyay sidaan warka ku helay waxa ku xiga wiil Xamse la yiraahdo 12 jir ah oo haddana Cabdullaahi Aadam loo bixiyay waxa ku xiga gabadh la yiraahdo Salma oo haddana loo bixiyay Safiya Safwaan baa ugu yar oo 7 jir ah oo Umar loo bixiyay waxaan markaa leenahay insha Allah taala nala hawl gala وعدسي وعبشو aan ka cabanayno idinka ma ahe waa idin cabanayna inaad hawsha nagala qayb gashaan way hal su'aalan ku weydiiyo abi carruurta waa taasoo abi carruurta dhala meeqa goorma laaftu taarurta
caruurta hadda ilaa 5 sano waa naga maqan yihiin 5 sano ka maqan yihiin 5 sano maqan adoo laascaanood badaganayd anigu reer laascaanaan deganaa anigoo magaalada safar ka maqan ayaa caruurta la soo afduubtay safar baad kaga maqnay safar baan kaga maqnaa marka xogahan lagu sheegayo waa dad kale ku soo tabinay xogaha dad kale ay soo gudbiyay maadaama 5 sano aan baadi doonaha oo idaacadaha hore uga hadlay Muqdisho oo idaacadaha Puntland ka hadlay waxa la sheegay in halka la soo galay meelahana lala meereysanayo marka 5 sano waad raadinaysaa ciyaar 5 sano waa raadinay goorma hadda warkooda ugu dambeysay oo meesha ugu dambeysay lagu sheegay warkooda waxa igu dambeysay dhawaantan intaan hadda Nairobi imi waxa la kaalmaystay booliska akhbaarteedan siiyay in meelahan caruurta lagu sheegay iyaguna xog ku heleen ilaa iyo hadda wax gacan lagu hayaana ma jirto dadka soo afduubtay ma Soomaali ama Soomaali waa Soomaali waa nin iyo haweeney Soomaali ah oo deegaan ahaan aan u dhalan gobolka Sool laakiin tuuga ku yimi caruurtan soo afduubtay ma dad hore ay afduubteen baa jira dad hore oo kulay anagu ma garan karno laakiin dad inta dad doonaya way jiraan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halka kan waxaan u nimid odaygan hadda sheekhan baayida ka maqan ayaanu anaguna dhinacooda aan iyana ka doonayn isku mowqif baanu nahay ciyaalkaas sidoo odaygu u sheegay laascaanood baa laga soo xaday marba meel baa la soo mariyay mar waxaa la keenay Muqdisho waa la soo kaxeeyay Gaarisa la keenay waa la soo kaxeeyay markii ugu dambeysay halkan ayay ku soo dhamaadeen rag baa loo diray oo xagga iskuuridka iyo rag baa loo diray raggiina inay meelaha ku jiraan oo bay sheegeen laakiin wali lama hayo ciyaalka yararka oo muddo dheer la soo afduubay sida odaygu uu sheegayo dadka soo afduubayna kulli baryahan waxa de way jirtaa arrimaha afduubka way jiraan laakiin anagu ciyaalka dadka gadanaya ayaanu anagu xaqiiqsanay dadkaasna markii ugu dambeysay halkan ay soo galiyeen halkanna waxaanu rabnaa maadaama ay wixii oo dhan ay soo dhaafeen oo meeshii hadda ay ku soo biyo shubteen ay tahay Nairobi siba xaafadaas ilaahay ku leeyahay dhow anaguna baydoon baan ku jirnaa marka dawladda Kenya maadaama ay halkan soo galeen dadka tuugada ah waxaan ka codsanaynaa dhammaan in loo gurmado in ciyaalka la qabto in loo raadiyo ilaahay dadka tuugadana sharciga la horkeeno Soomaalina waxaan ka sii codsanaynaa iyagana maadaama ciyaalku wada Soomaali ay yihiin dadka wadana aan ku tuhumaynay inay Soomaali yihiin iyaguna ciyaalkaas macrifada leh oo yar oo 4 gabdhood iyo 2 wiil ilaahay tukuuraya magacyada hadda odaygu sheegay odayga dhalay uu sheegayana iyagana waxa weeye saa wax lagu raadiyo cid kasta oo ma garanaysa inay raadin kanana waan u ducaynaynaa waa ubadkoodii waa ubadkayagii iyana saasaan u raadinaynaa hadii ma garanaysa ay hadee waa u simanahay wax kasta oo dhibaato ay ku timaado in dhibaatada dadka islaamka laga la xaliyo waxaan kala codsanaynaa iyagana in ma garanaysa dhulka inay la bixin way la baxayaan hadii la ogaado waxaan ka baqanaa inay hadana ay la baxaan oo hadana dal kale in awalba dalbay iska qarinayaan marba dalbay u gudbayaan haddaba waxa weeye laba dawladood amal bay marayaan marka waxa weeye waxaan rabnaa inay yana bixin oo isteeshimada iyo meelaha kantaroorada iyagana laga awdo oo wixii meesha maraya la kantarooro oo daada aan sheegnay iyo tirada iyo cid kasto meesha la maraysa nala soo ogeysiyo anaguna aan raadino idina aan nala raadiseen baan idinka codsanaynaa والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا وضياش أي شيخين شيخ محمود سعيد بأفرتا عرورة كم مقنتها مدة 5 سنة مركز شعبك الصوماليات وعن قعد سننا إني عرورتاس لبعض الدونان وماشي كو أركان أي سو شيغان دولة كينيا وعن قعد سننا إني عرورتا أي قبشدو أنا قلقي بقادته مركز قف ولبا والد ودريمي كرا والد 5 سنة ilmihiisi uu ka maqan yahay cid gacanta ku hayso rasmiina aan la ogeyn oo laga soo xaday caruurtii oo laga soo afduubtay marka waxaan dhihi lahaa insha Allah taala dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay nagala qayb qaataan gaar ahaan dalka Kenya maadaama marba meel lagu sheegay markii jaadha lafteeda wax lagu sheegay inay tagtay haddana ay soo noqotay Malolonga lagu sheegay Isakamo baa lagu sheegay Sabaki baa lagu sheegay ilaa hadda meel rasmi ah oo ay joogto Ilaahay baa og laakiin kulli Nairobi area-deedii xaafadaheedii joogtaa baa la yidhi
marka insha allahu tacaala ciyaalkii meelahaas lagu hayo ha lagala qayb qaato sheekh maxamuud siciid ha lagu soo wargeliyo iyo dhammaan odayaasha kaleba oo ehelka ah caruurtaas sidii loo heli lahaa lambaradana waa sheegaynaa lambarka sheekh maxamuud siciid waa laidin sheegi doonaa insha allahu tacaala caruurta sawiradoodana waa laidinla wadaagayaa marka dhammaan waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed inay gacan ku siiyaan oo gacan nagu siiyaan sidii loo heli lahaa caruurta maqan muddo 5 sano ana maartay aan gacan lagu haynin allah idin barakeeyo wajazaakum allahu khayran